arinta markaa ku saabsan khitaanka ama gudniinka inamadu waa waajib. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu ku daydo raaco nabi ibraahim an ittabic millata ibraahima xaniifa. nabi ibraahimna isagoo weyn baabu ayuu isguday, tahaaradii ayaana kaga xidhan, gaar ahaan waxa weeyaan ragga tahaaraduna salaadii bay shardi u tahay. marka taasi waa xukunka masaladu asal ahaan ay leedahay. inamadan gaarka hadda ayna weydiisay waxa ay leedahay inamadaasi haddii la gudo way dhiigbaxayaan oo de waxaaba laga yaabaa inay dhintaan oo dhiigbaxaasi ay u dhintaan haddii xinjireeyihii dhiigooda uu ka maqan yahay. marka waxaa leeyahay dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay baa masalada horta marka koowaad lagala tashanaya oo de inamadu waa in baadhitaan lagu sameeyo. haddii dhakhaatiirtu ay yidhaahdaan inamadaasi haddii waxa weeyaan la gudo way dhiigbaxayaan, waxaana dhici karta inay arrintaasi ay u dhintaan, dee qofka lama dilayo, wuxuu ku dhinto lama samaynayo. oo qofku inuu noolaado iyadoo aan la gudin qofka muslimka ahi iyo inuu guditaanka waxa weeyaan ku dhinto labaduba waa mafsado oo waa dhibaato. dhibaatooyinkuna siday u kala yaryar yihiin ayaa haddii ay ku gudboonaadaan loo kala horaysiiyaa. marka qofku inuu noolaado isagoon gudnayn ayaa dhaanta inuu dhinto oo gudniinka waxa weeyaan uu dhinto. laakiin waxaan leeyahay waa in dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay lagu noqdo. waa inuu sidaan ogahay gudniinka inamada waqtigan hadda aynu ku jirno inta badan dhiigba kama yimaado oo waxaa lagu gudaa qalab dab ah oo meeshii ay gubanayso dabeetana dhiigba aanu ka imanahayn. marka walaasha su-aashayna weydiisa waxaan odhan lahaa dib ugu noqo dhakhaatiirta sida casriga waxa weeyaan wax u guda. hadday ku idhaahdaan dhiigba ka iman maayo dee in la gudaa waajib bay noqonaysaa. hadday ku idhaahdaan dhiigga ka imanaya dhiig marka iyagii baadhaan halis gaadhsiinaya maaha inaad guddaa, markaana waajib bay noqonaysaa. haddii ay yidhaahdaan dhiig baa ka imanaya, dhiiggaasina inamada markii la baadhay dhiigooda inay dhintaan buu sabab u noqon karaa, marka waxay noqonaysaa in laga daayo.